وقاعدين تورو بري أوي haddana anigu waxaan la yaabanahay isaaqow awood ka jibtay maxaad isugu soo kicinaysaa dhulbaantaad iska celin lahaye waliba jaamac siyaad baa ku cayrcayrsanaye war ma reer isaaq baa la isku taataabtaa jifi reer isaaq kamida waadeenku waa quwad kaasi jeeday waliba new police ma la isku taataabtaa lambarada xataa waa laga carraa inaad bacdi lambarada xataa waa laga carraa idinkuna wad ku dabbaad ku ciyaaraysaan deeqa xaaxabi war muuqaalka isgaarsiin salaamu alayhi calaykum ummadda Soomaaliyeed soo dhawaada jimco wanaagsan meel ka sadaafa adduunka ka joogtaan halkani waa Gas Films anna waxaan ay miskiinkii raa injineer gaaska Soomaali galbeed waxa soo weeraray koox argagixisa ah oo laga soo abaabulay magaalada Hargeysa iyo Burco kooxdan ayaa ahayd koox u shaqeynaysay argagixisada al-shabaab iyo dadka la midka ah ee fikirka argagixisada aaminsan saaka waxaan ku tusi doonaa muuqaal General Gafayde Commissionerka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo digniintii ugu dambeysay u diray deegaanada beelaha isaaq sidoo oo kale hanti beelweynta ugaadeen lahayd gaari ari ah oo raran oo magaalada Burco lagu boobay sidoo kale waxaan ku leeyahay hadaa daaro tahay bil fadlan aad muuqaalkani ku soo gaaro ilaahay baan kugu dhaarshay dhul isaaq ha joogina isaga soo tagay yaani hadaa dhulka isaaq joogtid kulli dib uun baa ku gaaray anigu waxaan ku oran lahaa isaga soo tag in adeero yaani dhul isaaq ha ku nagaanin ka soo carar intay goor tahay laakiin hadaa naga dhaga adeegtid kulli adigoon iyo dhibaatadaada yaani waxaan ka wadaa dhul isaaq laguma nabadgelinay seedinimo laguma xishmeynay abtinimo ka daalig hatta hadaad ganacsi la wadaagtid inay ku khayaameeyaan baa laga yaabaa taliye Gafayde oo ah commissionerka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo digniintii ugu dambeysay u diray yaani maamulka yar ee ka taliya magaalada Hargeysa iyo hareeraheeda sidoo kale taliye Gafayde ayaa runta u sheegay qolyahan deegaanka ku soo xada gudbaya digniintii ugu dambeysana taliye Gafayde waa siiyay wuxuu dhahay deegaanka Soomaali galbeed qofowna ha isku soo dayin hadaad isku soo daydin dambiilo kulul baad liqaysaa dambiilo kulul baad hadda liqaysaa dambiil cad oo kulul baad liqaysaa commissionerka dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia commissioner taliye Gafayde ayaa runta u sheegay maamulka argagixisada beelaha isaaq bal hadalkiisa ku soo dhawaada taliye iyo qaylada iyo buuqa iyo abaabulka siyaasiyiinta khasaarta ay wadaan ha ku gelina bulshada digniin baan yaan idinka siinayna kuwa in soo dirayna halkooda ugu tagin ama talaabo sharciga waafaqsan kaga qaadan ruuska iyo qaylada iyo buuqa iyo abaabulka siyaasiyiinta khasaarta ay wadaan ha ku gelina bulshada digniin baan yaan idinka siinayna kuwa in soo dirayna halkooda ugu tagin ama talaabo sharciga waafaqsan kaga qaadan ruuska iyo qaylada iyo buuqa iyo taliye Gafayde waa maasan yahay digniintii ugu dambeysay waxa uu diray siyaasiyiinta khasaartay ee doonaya in deegaanka Soomaali galbeed ay qalalaas geliyaan laba maalmood ka hor dagaal ba'an oo halkaas ka dhacay dagaal lagu riiqmay oo qiyaamo u eeg oo aakhirkii jilbaha la isku aastay maleeshiyaadkii deegaanka ku soo duulayna dabcan loogu dhigay dagaal dabcan 10 lama ilaawaana loo dhigay deegaanka ragii ku soo duulay taliye Gafayde ayaa ah jananka guud ee ciidamada liyuga hogaaminayay taliye Gafayde ayaa 10 lama ilaawaana u dhigay qolyihii urgufyada argagixisada beelaha iyo door ee sida gardarada ama doolaalada ku yimid deegaanka Soomaali galbeed taliye Gafayde wuxuu leeyahay adeer ragaan ku kalsoonaay baan haystaa rag birta calashadaan haystaa ragaan waxba ka naxayn baan haystaa ee meeshaan ha ku soo saqajaamina yaani runta ayuu u sheegay wuxuu dhahay meeshaan waxba kaaga ma soo horeeyaan meeshaan naar baa kaaga soo horeysa marka yaani taliye waa maasan yahay taliye Gafayde maadaama uu runta u sheegay maamulkii yaraa ee cuqdada iyo argagixisanimada lagu dhisay maamulkii yaraa ee beenta iyo naxliga lagu dhisay waa maamulka argagixisada dabcan sidaad shalay ogeydeen qolyo maamulka argagixisada Soomaaliland ayaa dawlad deegaanka Soomaalida Ethiopia dhaafay oo cararo dhaay federaalka Ethiopia la soo kulmaya irida laga galo wajaalati ku dhacday waa looga ninkii jaranka inuu dhahay 24 saac gudahooda argagixisada deegaanada soo weerartay soo gudbiya sidoo kale 24 saac kaga gurta xamaamtiina deegaanka Soomaali galbeed
wadadii jigjiga loo mari jiray waa xaggan wadadii bay aadeen waxay rabeen markay jigjiga tageen inay la kulmaan Asaciim Dr. Mustafa Maxamed Cagjar laakiin wuu iska yara duway oo wuxuu u balamay kuwii jikooniga uga shaqeyn jiray mabdaqa ku jiray wasiir الطعام buu u balamay gabadhii markii nimankii saa loo bahdilay Xuseen Qaasim oo wasiirka madaxtooyada oo si gobonimo iyo Soomaalinimo ku jirta u qaabilay marka dadka noocaas oo kala waa dad la iska ilaaliyo allo sahal ah marka kulli anu waxaan leeyahay wari baa ka raacday isaaqow jac iyo wari baa ka raacday deegaanka Soomaali galbeedna adeer kuma soo xad gudbi kartid deegaanka Soomaali galbeed rag baa u golongolay rag baa dabcan u golongolay oo geeri xataa u mutay deegaanka Soomaali galbeed rag baa leh rag ilaha un baan haysanaya يعني تنقل هذا الشيء جو وحال وضع أفتئه إن إساق أو دن لقصو ترحيلو ديجان كسومالي قلبيد يجو هرجيسية برعلي يسوسو شوية إساقينا وريبا هيستو حللية دولكم مجورة دتك جورة دولكم مجورة دتك جورة يعني سو جورة للية دولكم مجورة دتك جورة للية كوميشنير كان أدي هذا يوم سي هاي سيدو كلام مقال كلو حنكو هيا حدود بيناتك الله حري تلي كفيدو هلك جافوري يعيد مرة ميلتري هذا جدي يجير لغا بقوب جانانيو طبلا بحوق قارك جيرو جالا يالو برشاد ويدي جعيري هذا جدي يجير لغا بقوب جانانيو طبلا بحوق قارك جيرو جالا يالو برشاد ويدي جعيري تسابن كي يدشكها واحتار بارن كلام لي يجيب بوينو شلكا عقد هوي كجيدي سكو جوك سنوان تسابن كي يدشكها واحتار بارن كلام لي يجيب بوين حدود بيناتك u dhaxeeyay Soomaali galbeed iyo maamulka argagixisada beelaha Isaaqa gabiyahanba waa la xiray oo waxa laga mamnuucay xataa dhaqdhaqaaqa dadka bini'aadanka inay isu soo gudbaan deegaanka Soomaali galbeed waxa ay automatically u xireen xudud beenaadka u dhaxeeyay maamulka Hargeysa iyo dawladda deegaanka Soomaali galbeed magaalo qaran wajaale dhamaan waa la xiray waana la korosay qof bini'aadan inuu maray iska daayay xataa xayawaankan mari karin qaadu ma iimaanayo gaacsi ma soo gudbay cunaqabatayntii sooltana ka sii daran badee cunaqabatayntii sool tana ka sii daran waryaareen isaaqow dimbil dabad ku ciyaaraysaan ilmaada reyaal mad gadeysaan sidoo oo kale waxaan ku hayaa madaxweyne Maxamed Asaciim Mustafa Maxamed Cagjar oo dabcan isku daygi fashilmay ee argagixisada Somaliland doonayeen in deegaanka Soomaali galbeed ku qalqalgeliyaan dadka golaha shacabka ee dowladda deegaanka Soomaali galbeed u sharaxaya shalay ilaa iyo daraad la daba socdo oo tarxada ayaa jirta lana ururinayo laakiin haba yaraatee ujeedadii ahayd in technico iyo hub iyo raashin iyo sariir la samaysto boqolkiiba waa la burburiyay runta darbaaxo laba ilaawaan ayaa lagu dhuftay ciidankuna si buuxda ayuu aagaas ilaa iyo feker u joogaa oo ammaanka shacabka ugu sugaya waxaa kaloo jiray koox isku dayday inay ka soo weerarto dhinaca qalaaf iyo qurac joomo oo markii talaabooyinka laga qaaday kuwii kale iyagu dib u cararay hasaatee dib loo raacayo ilaa xadka laga saaray saadaradeed waxaan oran karnaa wajigii koowaad si buuxda lagu guuleystay hasaatee wajigii labaad oo xuduudihii la sugo qaabka dagaalka loo galiyana lagu daro in loo diyaar garoobo dabcan Asaciim mudane Dr. Mustafa Maxamed Cagjar ayuu kaasi ahaa isagoo faaleynayay jabkii argagixisada ku dhacay iyada oo dabcan uu si faahfaahsan u sheegay in feerfeer koonfur galbeed ilaa gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya xuduud beenaadka ila lahaayay in ammaankoodu uu sugan yahay shacabweynaha ku dhaqan dowladda deegaanka Soomaali galbeed tankalan warka kala aan aadka ugu farxay waxyaabaha jira yani waxyaabo aniga aad ii soo jiitay qoraal dheer baan kula wadaagi doonaa qoraalka dheer hadaad aragtid raaligelin 140 kilomitir loo socday weligaa horta ma aragtay raaligelin 140 kilomitir intaad u socotay aad jilbaha qabsato tir ilmaada reyaal raali ahaada wixii dhacayba waa dhaceen raali ahaada oo bort soo dhawaada weligaa intaad nooleed sidan oo kale ma lagu bahdilay
raaligelin 140 kilomitir la soo ordayay maxay maanta ku heshiiyeen DDS iyo maamul goboleedka argagixisada beelaha Isaaq qodobadan ayaana lagu heshiiyay soo dhawow qodobka koobaad inaysan mar kale ka hadlin arrimaha gudaha Itoobiya in mar kale ayna ka hadlin arrimaha Itoobiya waa qodobka koobaad inay joojiyaan ciidamada ka imaanaya dhinacooda in wax maleeshiya beeleed ah oo dhinacooda ka imaan kara inayna jirinin يعني وقرب كصدحات وقرب كلابات قرب كصدحات إنه رالجلين كبحيان إذا عن سياسي جاهين تاسو أي كبحيان طبعا إذا سياسي جاهين إنه رالجلين كبحيان إن أريد النعف نحر يعني أريد عاطفة ده inay raali galiyeen dadkan de dabcan dawladda deegaanka Soomaali galbeed dad badan baa ku gafay oo halka jooga okay inay raali galin ka bixiyaan eedaha aan siyaasiga ahayn taas oo ay ka bixiyeen in la xisaabtami doono dadka colaada ka abaabulaya gudaha Somaliland qof kasta colaad ka abaabulaya dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee ku sugan Somaliland in gacan lagu dhigi doono in dambiilayaashii ka qayb qaatay ciidankii lagu laayay dacwalay ee ka gudbay xuduudka Somaliland loo soo dhiibo ciidanka DDS ama ciidanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya qodobadaas oo lagu wargeliyay iyahay in maamulka DDS xaliyo khilaafka gobolka Jarar iyo Faafan iyo Caala iyo Xarshin in DDS iyo Somaliland ay si wada jir uga shaqeeyaan arrimaha xuduudka ganacsiga iyo in odayaasha Somaliland jooga si wadaan wada hadalada nabadda loogu raadinayo in DDS ay baaraan wixii sababay dhibaatooyinkii ka dhacay dacwalay qodobka shana qodobo gaar ah jiro halka lagu faafaahin karin marka kulli 140 kilomitir soo orod oo raaligelin la soo orod oo taliye gafeedho jilbaha qabso de kulli waa dulinimada qayb kamid weeye marka waxaan leeyahay akaraama seegina habar la igu kari waa kafayga hadaan qac ka siiyo dabcan taliye gafeedho u timiya jilbaha qabsataya ama wax kala sameysaya marka kulli hawshu way sii soconaysaa marka si dambaysa way sii xumaanaysaa marka kulli anu waxaan oran lahaa taliye gafeedho waa guuleystay taliye wallahi way qirteen inay jabeen reerkaas waa qirteen in jab iyo holac la leefsiyay waa qirteen inay maanta waxba yihiin way qirteen marka kulli ninka ragga waa nin jaba laakiin sidan oo kale looma jabo dawladda deegaanka Soomaali galbeed adeer dad baa iskale dad baana deegaanka iskale dad baana de Ilaahay ku beeray kafac hadda waxay ku dudeen Hawd and Reserve area rabna dhulkan waa dhulka ogaadeen dhulka Hawd and Reserve area waa ogaadeen region way gumeystiiba xataa yaqaan oo register gareysanta wax Hawd and Reserve area la dhooma jiro ku seexo ku soo toos waligaana aaminsano Hawd and Reserve area la dhooma jiraan taas niyadaada gali ana kule taas niyadaada gali reerkii dhamaa siday u jabeen idii uma jabin siday dhulka uga soo go'een wali dhulka uga soo go'een waxa la yaabarahay ilaa hadda isweydiinaya 140 kilomitir soo orod raaligelin keen haddana si orod waxba yahay haddana ugaadeen tashay ana runta ku sheegay dhigayso ugaadeen maanta wuxuu ku tashaday inaan Itoobiya isaga loo kala turjumin inaan isaga iyo Itoobiya waxba aan loo kala turjumin inaan Itoobiya iyo ugaadeen dhexdooda la gelin marka kulli ariga waa saas anu hadda waa kula talinaya ugaadeen iyo Itoobiya looma kala turjumay haddaad Itoobiya wax uga baahan tahay mudane Dr. Mustafa Maxamed Cagjar baad u tagi halkaas fadhiisan Itoobiya hadda wax uga baahan tahay hatta Xasan Sheekh Maxamuud ka bahalka ah ee qabuuraha falanaya hadduu Itoobiya wax uga baahan yahay mudane Mustafa Maxamed Cagjar buu u tagayaa السعيد مصطفى عكشر بوتي هيك حسابتن رجال لي اوش ويس كسو دماتay وغادين تور بري اوي haddana anu waxaan la yaabanahay isaaqo awood ka jibtay maxaad isugu soo kicinaysaa dhulbaantaad iska celin lahaye waliba jaamac siyaad baa ku cayrcayrsanaye war ma reer isaaq baa la isku taataabtaa jifi reer isaaq kamida waadeenku waa quwad kaasi jeeday waliba new police ma la isku taataabtaa lambarada xataa waa laga carraa inaad bacdi lambarada xataa waa laga carraa idinkuna wad ku dab baad ku ciyaaraysaan deeqa xaabi war muuqaalkiis gaarsiin